waxaan qasooyinku waa fara badan yihiin xusuustay oo qiso inaan sheego ay lagama maarmaan tahay fi hada albaab nin sheekho mashaa'ikhda reer madiine ah oo haddaba nool oo la yidhi waa nin caalim ah madiina kutubta ka aqriya oo aan filayna nin ahlu khayra inuu yahay waxaa lagu leeyahay ilaa yowmina hada mindha kontonkii waa u dhaafay weli ma uusan guursanin wuxuu u guursan waayey sidii dadkii waraystay wuxuu ka baqayaa qofka uu guursado inay hooyada isku dhacaan isaguna meelaan hooyadii agteeda ahayn ma seexdo yani ma doonayo meesha hooyadiis buu ukhidmeeyaayo qolkeeda qol aan ahayn inuu seexdo ma rabo hadduu guursado marka xaq baa lagu yeelan waa inuu islaantii qol kale la tagaa waa in arrimahaas marka ma yeelin baa layidhi horta taas anigu kamaana maqan lakin qisada aan maqlaan idii sheegay cajaaib tale qisada waxaa ii sheegay nin soomaali ah oo isagu yani dee sacuudiga ood garanaysaan kafiil ka yahay kafiil ma taqaanaa waa wax ilahay idinka xoreeyay idinka waxawaaye waxawaaye nin ba adiga mas-uul kaa waay inuu nin mas-uul kaa noqdo ayaad ku joogaysaa marka ninka kan nin sheekha oo soomaali ah iiga sheekeyna wuxuu yihi sheekhan waxaan isku aragnay meel jidda ah isagu reer madiina wey wuxuu yihi buu yihi sheekho waxaan rabaa yani nin darawala oo aad baan mashquul ahay hooyaday iyo walaalaha iyo gaariga ku kaxeeyo haddana ahla diina oo weliba usro leh baan doonaya sheekhana waan aqaanaa buu yihi markuu saas yihi anaa bu yihi anaaba diyaaraba waaya marka anu magaalo kalean joogaa buu yihi oo aada uga fogo januubka meel koonfurta khamiis bisheed meel yihi buu yihi imow madiina isugu keen almuhim tigirkii iyo wii iyo lacagtii iyo wixii buu isiiyey bu halkaa inaan isugu tagno marka waxaan u imid buu yidhi inaan markaa ani kafaalada sheekha ku wareego oo dabadeedna khidmadiisii galo madiine iyo xaramka iyo khayrka inaan ka faa'idaysto waan imid xaramkii baan sheekhi baan la kulmay sheekhiisuu isii waday meel hotel u idejiyey buu yihi lacag buu iga bixiyey wuxuu yihi intaan kaaga jawaabayo ama haroos hawsha ka bilaaban halkaa ku jir 4 bilood ilama hadlin buu yihi maalin kasta sheekha waa is arkanaa waa arkaa waa salaama waa iska tagaa waa iska ilama hadlin 4 bilood oo hotelkii lacagta bixinayo kadib ayaa wuxuu yihi aan sheekhiis aragnay sheekh dee xaalku muxuu yahay horta waraaqihii wixii ii sameeyey buu yihi kafaaladii iyo wixii magaciisii waxa dhan waraaqihii waa ii dhamaystiray shaqadii inaan bilaaban sugaya waa i yimid wuxuu yihi buu yihi dhageyso aniga hooyaday weligay intaan jiray hooyaday kelimada ay tiri kuma celin saas wey hadday tiraa nacam khalad ha ahaato sax ha ahaato weligay kelimad dib uguma celin marka wuxuu yihi arrinta markii aan kaala hadlayay hore nin baa jira darawal u ah hooyaday oo reer wadankeena asalkiisu Mauritania yahay reer wadankeena ah ninkii marka xoogay markii dhaliisha ay timid oo inaan isagii aan iska sii daynay ay noqotay intii aan hawsha ku maqnaa adiga xaggaaga ninkii baa hooyaday ku cabtay oo yiri ma garanaysaa hooyo sidan waayo markii aan soo noqday hawshaadiina ay dhamaanaysaba meel fiican ay noo marayso ay hooyaday waxay tiri waxaan doonaynaa ninkii hore inuu noo joogo ee iska daash ma oga buu yihi hooyaday inaan nin la soo ballamay oo lacag ka soo bixiyey oo kharaj galay oo adiga kula soo ballamay oo ma oga buu yihi anigana caadadayda ma aha buu yihi kelimad ay tiri inaan aan u jawaababa yani inaan hooyo meeshii nin baan u yeeranay oo xaaladdu halkaasay maraysaa igama suurtooda buu waxay tiraa un baa soconay marka saas awgeed iga raalli ahow aniga meeshaas ma geli karo maadaama hooyaday tiri ninkii horaan rabnaa khalaas hadalkeedaa soconay adigu marka lacagtana qaado madiinana meeshaada iska joog sidii kalean kuula dadaalaya oo khayr laakiin booskaas ma geli kara buu yiri ma ka suurtoobi lahayd nin waqtigeenoo kale zamankan jooga weliba oo zamanu tafatux iyo zamanka furfurnaashaha iyo dimuqraadiga iyo hadalka iyo wada dooda iyo alaabtan ay wada socdaan ma kaa suurtoobi lahayd say ku dhici kartaa nin baan la hadalay nin baan keenay oo xataa si wanaagsan xataa uga dhaadhicin karaa ma doonaayo waxay tiraan baa soconay marka walaalayaal xuquuqda waalideyntu waa arrin aada iyo aada u weyn ninkii ilaahay waafajiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala siiyo xabdigiisa iyo nasiibkiisa uu ka dhigo aabihii ama hooyadii oo da-a oo u baahday ninkii ilaahay siiyow nicmaa ilaahay kuusoo xerogeliyey barwaaqa ilaahay kuusoo geliyey jannada albaabkeeda ilaahay ku dhigay adigu albaabkaas jannada ha iska xoorin haddaba waad la socotaan waad maqasheen xadiidka nabigu uu yihi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka uu yihi waa duco jibriil duceeyey
nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna aamiin yidhi. maxaad aamiin u leedahay? jibriil baa duceeyey. ragima anf rajulin kabira cindahu waalidaahu falam yudkhilahu ljanna. waxaa baaba-ay oo hoogay oo khasaaray nin aabbihii hooyadii ku agweynaadeen ama midkood oysan iyagu sabab u noqon jannada inuu galo, jannada gelin waayo. yacni ixsaanka uu u ixsaanfalayo iyo wanaagga uu la imanayo ayuu ku janno mudanayaa. hadduu taa garan waayana haddii jannadii heli maayo halaag buu ku dhacaya. marka waa nicmo weyn qofkii ilaahay laba waalid uu siiyo, nicmo weyn. waxaanad ogaataa baraka oo dhan iyo khayr oo dhan iyo wanaag oo dhanna in ilaahay meeshaa kuu dhex dhigay. qasooyinku saan idiin sheegay iska badan yihiin. xajkii dhaweyd, berigii dhaweyd, xajkii hadda ahaa baa nin sheekh oo masri oon isku wadan ka nimid, qatar ka wadan baa hadlaya. mawduuc wuxuu ku keenay garan maayo, waxayba ahayd maalmihii xajka, lakiin mawduuc cajaa'ib le yani sheekada buu ka bilaabayba. dad badan buu la hadlaya. wuxuu yihi masar, meesha masar la yidhah baa cimaaro waa taqaanaan, bilding weyn ayaa gubtay. bahal baa ku qarxay, waa gubatay, cimaaradii o dhan waa gubatay, bel waa isla gubtay. waxaa ku nool buu yihi kamida dadka ku nool, reer ka kooban qof dumara oo caruur leh, oo weliba mid ilmo markaas naaska ay nuujinayso oo radiica, iyo hooyadeed oo duq ah ayaa la nool. intaasa ninkii guriga lahaa ma joogo, waa ka maqan yahy. dabkii baa qabsaday, suu u socday, gurigii buu gaaray. gurigii markuu gaaray dabkii baa qabsaday. waxay noqotay markaa in laga cararo, inay ilmihii la fakato. marka ilmaheeda waa badan yihiin, marba mid bay daftaa, waa la fakataa, marba mid. waxaa isku soo gaaray, isku qabsaday bu markii ugu dambeysay dabkii iyo qaraxii ugu weynaa, iyo hooyadeed iyo ilmihii ay dhashay oo markaa radiic ahaa, naaska nuugayay. mid hadday qaada ka kalena qaraxii baa ku dhacay, gaaskii wixii dhan baa isqabsaday. marka waa arrin khatar ahoo waana mowqif xasaasa wey, khatiira. kana ilmahan waa beerkeedii, kana waa hooyadeed, keebay marka wuxuu yihi sheekhu ilaahay wuxuu waafajiyey inay ilmihii iska dayso, hooyadeed ay qaado. hooyadeed ma socon karto, hooyadeed bay daf tiri, la booday, markaasay meeshii ku tuurtay, ay kula cararaysay gurigii kale. sidaadii ay yeeshay baa qurigii isla qarxay, qolkii oo dhan, shaqadii oo dhan baa bug. ma la soo geli kara marka, iyadoo markaa indhaheeda shan ay arkayso ayaa meeshii isla dambast noqotay. ilmihii yaraan waa ku jira. dadkii waa la farxay, waa meeshii waa loo, laakiin iyadii ma farxi karto, dee ilmaheedii oo naaska nuugayay bay kasoo tagtay. laakiin maxay badbaadis hooyade? sheekha wuxuu noogu dhaartay, sheekh muwaafi baa leedahay, wuxuu yihi markii la yimid qoladii dabdamiska yimaadeen, ayb meeshii wada dambas bay noqotay. wixii bay marka soo inay kala qaadqaadaan oo bal wixii ilmihii fiiriyaan. sheekha ilaahay magaciisuu ku dhaartay, wallahi buu yihi waxaa loo tegay ilmihii yaraa oo sidiisii u ooyaya, oo wax tinna ayna ka guban, meel la waxba ka gaadhin. guriga intiisii kale xataa sariirtii uu ku jiifay dambas bay noqotay. ilaa ilmahaas yaa badbaadiyey allah rab اlcaalamiin. nabi ibraahim qulnaa ya naaru kunii barda wasalaama calى ibrahim, soo mahay qaadirun calى kuli shay. waa dabaan waxba reebaynin. ilmaha yar ilahay baa badbaadiyey, lakin muxuu ku badbaadiyey? sabab bay leedaho, waa sababta hooyadeed. doorashada ay dooratay inay hooyadeed ay ma aragtay doorbido, ilmaha ka doorbido, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku badbaadiyay ilmahaas. xadiidkii waad la socotaan, waan idin sheegayaa. waa xadiid muhima oo baabkan ku saabsan. 3 nin oo reer bani israa'iila oo safara ayaa waxay roob baa kusoo da-ay. waxay is dhaheen buurtan hoosteeda ka gala roobkan, meeshaasay galeen, ama halkaasay u baryeenba, aawow halkaasay u hoydeen. buur hoosteeda god ku yaal bay u hoydeen. buurtii baa dhagax weyn ka soo dhacay oo afkii ka owday. waa maqasheen xadiidkan u wada malaynaya kulligiin badin. waa ku xidhmay khalaas. 3 diin halkaasay ku jiraan. jawaal iyo telefoonna lama haysto, mobile
dadka lagula hadlo ama ambalas loogu yeerto ama askar loogu yeerto. fa maxay sameeyeen? itasaluu billah, rabbi bay la hadleen subxaana wa tacaala. ninkii bilaabay saddexdooda waxay dhaheen horta war saddexdiino waxa idin badbaadin kara maanta male ilaa aada ilaahay ku baridaan mid walba u camalkaad is leedahay waa camalkii ugu muhiimsanaa ee rabbigaa kaaga raalli noqday maanta ku bari, kaa un baa ku badbaadinayay. nin baa hadalka bilaabay, wuxuu yihi allahuma ilaahayow kaana lii abawaani, laba aab baan lahaa. laba aabba macnaha aabihi hooyo waayo. abawaan haddii aada maqasho fi luga alcarabiya waa takliib weeyaano waxa weeyaan ab iyo hooyaa loo jeedaa. abawaani, kaana lii abawaani kabiiraani, oo duq ahoo da-ahoo gaboobay labaduba. waxaana caadadayda ka mid ahayd buuga, dhaqankayga ka mid ahaa, marka reer baadiya la iska ahaayo, reer baadiye weeyo. wuxuu yihi xoolaha markaan soo galbiyo habeenkii oon soo noqdo oo aan caanihii aan liso, caanihii maalo, iyaga cidna kama hormarin jirin. hadda waa inaan caanihii uqaybiya ilmihii iyo xaaskii iyo wax soo ma, iyagaan ugu horreysiin jir. cid iyaga ka horreyso cabi jirtay caanaha ma jiraan. wa kuntu laa akbiqu qablahuma ahlan walaa maala. marka maalin baa foofkii ila fogaaday buu yihi xoolaha, waan soo daahay, way seexdeen. iyagoo seexday labadii waalid baan imid buu yihi. caanihii waa usoo lisay, qadaxii ama gaawihii aan kusoo lisay baan wadaa. marka iyagiina waa hurdaan, ilmihii waa soo jeedaan, dadkii kale o dhan waan soo jeedaan. marka laba shayba waan diiday buu yihi. kow, inaan caadadaydii aan gafo oo aabbaha iyo hooyadii cidna ka hormariyo, taa ma yeeli kara buu yihi. inaan hurdada iyagoo hurdada ka kaciyo oo kaala canihii caba, iyadana waan diiday buu, waa ii suurtageli wey. xalkii muxuu noqday? inaan habeenkaas oo dhan taagnaado buu yihi. qaa'iman, habeenkii oo dhan waa taagan yahay, ma fadhiya xataa, waa dul taagan yahay. iyagoo horda, gaawihii oo caanaha ku jirayna wuu hayaa, gacmuhu ku haya, ilmihii waa ooyayaan oo caanihii nasiibay leeyihiin, warkooda ma dhagaysanayo. wuxuu sugayaa markay soo kacaan. goormay soo kaceen? goortii fajarki ay ahayd, salaadii subax, markaasay soo kaceen. markay soo kaceen buu caanahoodii siiyey. wuxuu yihi ilaahu arrintaas haddaan adiga dartaa u yeelay, ufruj cana maa naxnu fiih, arrintan aan ku dhex dhacnay dhibaatadan ilaahu maanta naga fayd. dhagaxii biamrillaahi tacaala meeshii buu ka dhaqaaqay, duleyl buu baneeyey, lakin kama bixi karaan. labadii kale la sugaya, warkay keenaan, labadii kale la sugaya. kii labaad wuxuu yihi isna arrin cajaa-ib luu sheegay. gabadh baan jeclaa buu yihi, in adeertaya, oo aan raggu say u jecel yihiin haweenka sida ugu badan aan u jeclaa. jacayl xun oo aan fiicnayn buu ahaayo, waxaan doonayay buu yihi inaan maaragtay faaxisho iyo zina ku sameeyo. aydana waa diid, waxay tii xaaraan ma abadan lagama yaabo. wuxuu yihi muddaa markii ay diiday, zaman waxaa yimid kulul, waa la abaar, waa la gaajooday, waa la rafaaday. ka bacdi iyadoo miskiinaho baahan, gaajo awgeed ayay iigu timid. waxay tiri buu yihi haddaan ogolahay, bal waxaad rabto sameeyo, isii wuxuuna siiyey. markaasaan wuxuu yihi siiyey 120 diinaar oo dahaba ayaan siiyey, si ay iigu ogolaato arrintii horay ay iiga diiday. markii ay ogolaatay oo dabadeed aan isla khaali noqonay oo aaman dusheeda aan fadhiyo, ayay waxay tiri buu yihi ittaqi illaah, ilaahay ka cabso, walaa tafuda alkhaatama ila bixaqihi, khaatamkan ama furahan ha jabinin ilaa bixaqihi. waa guur yani, adoo nikaaxsanin arrintan ha samaynin, ayay igu tiri buu yihi ittaqi illah. marka tiibaa qalbiga iga taabatay buu yihi. markaasaan meeshii ka kacay, farahan ka qaaday, lacagtiina kama ceshanino waan u daayay. ilaahay ou arrintaa haddaan adiga dartaa u sameeyey, fafruj cana maa naxnu fiih. dhagaxii marka ilaahay arrin u aqbalay bay ahayd, horay u ogaa subxaana. dhagaxii meeshii waa ka durkay, laakiin kama bixi karaan. kii saddexaad baa la sugaya. kii saddexaadna arrin cajaa-ib loo sheego kale. wuxuu yihi ilaahayo waxaan soo kiraystay dad ujaro oo ii shaqeeya, shaqaale. markay shaqadii ii dhameeyeenna nin walbaba shaqaayadii uu lahaa iyo mushaharkiisii baan siiyey. nin baa iska diiday waxoogay, waxiisa lugayo yihi war naga tag, waxaan maxayiin isaga tag. waa xanaaqay, waa tagay. xoolihiisii, xoogaygiisii u lahaa, ajrigiisii, shaqaayadiisii, mushaharkiisii maalinta ayaan u kobciyey buu yihi, oon u midho maalay, cidna kuma khasbin. wuxuu yihi
ajarkiisii intii yarayd lacagtii yaraa u lahaa baa ilaahay u barakeeyo geel fara badan iyo lo fara badan iyo ari fara badan iyo addoomaa la iibsan jiray oo fara badan intaasoo xolo ah ayuu noqday. beri danbu u yimid wuxuu yihi ya cabdallah addi ilaya ajri, hadda isii waxoogayga aan berigii ayaan saluugeyn ka cararay. markaasaan ku iri bu ma aragtaa geelaas iyo lo-da iyo ariga iyo raqiiqa addoommada iyo waxaasoo dhan adaa iskale qaado. markaasuu yiri ya cabdallah laa tastahzi bi, haygu jeejeesin, anigu jeejeesan miskiin aan ahay, xoogaygeeni iyo mushaarkaygiisii xoogaygi maalintii aan ku shaqaysaysay waxaan o dhan mali may kugu jeejeesi maayo, intaa aad arkaysoo dhan lacagtii yareedeed ka tagtay baa kuu dhashay, adaa iskale qaadaan iri buui. markaasuu yihi fastaaqahu waa wada kaxaystay oo falam yatruk shayan, shayna kama tegin. ya mid isna inkaar qabo midha ah kaas ma oran xataa neefka war awrkan ama neefkan arigaa xataa bal intaa dadaashi iyo wixii aad qabatay u qaada bedelkeed ma oran, kulli waa wada qaatu yidhi. falam yatruk shayan, shayna muuna ka tegin, anoo arkayo wada qaatay bu. ee ilaahayow haddaan aniga arrinta dartaa u sameeyey, adiga dartaa u sameeyey muxuu ka wadaa? yani maalintaa hadduu xoogeygii lacagta uu lahaa keliya siiyo macid baa u eedsan lahay? miyuu ka warhayaa kani? ma og yahay kan waxaan oo xoolo ah in lacagtiisii ay dhashay? ma oga. iska tag hadduu yidhaaho xoogeygiisi uu siiyo cidna uma raacateen, laakiin adiga dartaa baan arrintaa u yeelay buui. haddaan saa nahay ilahu naga fay, dhagaxii fog meesha waa ka baxay, saddexdii ninna waa iska tagay. hadda muxaadarada barnaamijka khuseeya kee waaye? kii hore waay. so mid walba waa mid cajaa'ib leh oo yaab la waay, laakiin kii hore labadiisa waalid markaad si u fiirsato, ninkaasi wuxuu la yimid xaqii ugu weynaa buu la yimid lilwaalideyn, oo waa maxa? dee waajib kuma aha, qasab kuma aha, sharcigu kuma qasbin, waa ixsaankii lana faray weeye. ixsaanku waa fawqa maa huwa matluubun minka, farad ku ama ah, waa wax oo isagu dheeraadu samaynayo. inuu ilmahan gaajaysan ee cabaadaya ee qaylinaya inuu hormariyo caanahaasi, maadaama aabbihi hooye ay seexdeen, wax dhibaataha kama soo gaadheen, walaakin xaqooda uu dhowrayo iyo arrintaa uu waajibka isaga dhigay aabbihii iyo hooyadii cid ka horeysa inuuna caanaha saynin ayuu diiday inuu jabiyo. midda kale muu iska seexdo oo markuu soo kaco berri soo kacaanay siiyan, habeenkii o dhan buu taagnaa. taasaa marka ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqday, sababna u noqotay tafriijkii ilaahay uu ka fog. marka waxaa lanaga doonaya inaan ku dadaalo. alwaalideyn xaquhumaa kabiir, inaan iska ilaalino xaqooda had iyo goor aan ku dadaalo. labada waalid shayga ay jecel yihiin inaan anagu uga hormaro had iyo goor. waad la socotaan xadiidkii nabiga calayhi salaam uu ku tilmaamay nin taabiciya, waa nin taabiciya, nin saxaabiya ma ah. saad la socotaan ummaddan waxaa ugu khayr badan asxaabta nebiga, ka bacdi jiilka ku xigay, aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum. yani taabiciinta oo dhan haddii laisu geeyo kulligood dad fiican baa ku jiray, hal nin oo saxaabo ah agtiisa ma iman karaan. saxaabada fadli ilaahay aa siiyey, fadli ilaahay oo gaaray leeyihiin maadaama ay nebigii la kulmeen calayhi salaatu wasalaam. walakin maca dalika nebigu nin taabiciya oon saxaabi ahayn ayuu asxaabtii weliba raggoodii ugu waaweynaa, weliba sayidina cumar bn khaaab aha, wuu u dardaarmo weyne ninkaa haddaad la kulanto duca ka dalab inuu kuu duceeyo oo dambi dhaaf ilahay kuu weydiiyo. ninkaa waxaa la yidhaha buu yihi uways alqarni, waa reer yaman, reerkaas oo qaran abuu ka sii yahay, halkaasuu joogaa, hooyuu leeyahay oo baari u yahay, lahu umun biha huwa biha barun, baari buu u yahay, hooyadiisbuu baari u yahay. ninka haddaad aragto duca ka dalabo ii dambi dhaaf, ilahay ii dambi dhaaf ii weydii dheh, dambi dhaaf ilahay iiga bari isku dheh buu yihi haddaad aragto. sayidina cumar oo weliba amiiru lmuminiin markaa ah ayaa markay yimaadeen kooxihii amdaadii jeyshka muslimiinta, ilan waa laga dalbi jiray meel kasta inay ka yimaadaan, ayuu weydiin jiray. waa nin uways la yidhaha yaa yaqaan, ilaa uu helay nin yaqaano o yidhi anaa ninkaas kada. markii dambe waaba yimid uways baaba ways arkeen ba, ha adigu ma hebel baa taha, ha reer hebel ma taha, oo hebel qabiilkaa reerkaa ma kasii taha, uways ma lagu yidhaha, hooye ma leedaha, baras ma lahayd oo ilaahay ma kaa caafiyo, in yaroo dirham oo kale ama kaaga hadhay, ha haddaba waa ninkii nebiga uu nagula dardaarmay baa tahay, warniyahu dambi dhaaf ilahay iyo weydii, oo waxaa tiraa ilaahay oo cumar u dambi dhaaf. waayahay allahuma kfir licumar bn khaaab,
haddaba wuxuu xageed u socotaa dhinaca kuufaan u socdaa aan kuugu qoro halkaas si lagu ogaado maqaamkaaga maya ha yeelin buu yidhi akunu fii qabraa'i innaas dadka caamata naasi fuqaradoodaan ku jiraya waxba yaana gaar ka noqonin iska kayda sidii buu uga tegay meeshii buu tagay sanadkii dambe markii lasoo xajiyey ayuu wareystay dadkii meeshiisa ka yimid war ninkaa ayaa arkay annagaa aragnay wuxuu ahaa nin waxaan aragnay bay dheheen ninkaas aweys wey oo xaaladiisay ahayd wa kaana radha almataac yani nin miskiin ahoo tabar daran oo taag daran bu waxba aan haysanin buu ahaa markaasuu u sheegay sayidina cumar war ninkaa iska ilaaliya ninkaa waa ninka nebigu uu nagula dardaarmay haddaan aragno inaan nidhaahno ilaahay dambi dhaaf noo weydii ee ninkii arkow sidaa yeel kuwii baa noqday war balka hale amiir lmuminiin baaba yiri ninkan nin khataro weeye bal ilaahay noo bari markii dadku ay ogaadeen waa isaga tegay ma doonaya meel lagu ogyahay inuu joogo nin saalix buu ahaa waxaa caadadiisa kamid ahayd baa layidhi salaada subax markuu tukado meeshiisa kama kici jirin ilaa duhurka haddana duhurka markuu tukado meeshiisa kama kici jirin ilaa casarka hadda casarka hadduu tukado ilaa maqribku haddana fadhihi jiray maqribka hadduu tukado ilaa cishahu fadhihi jiray cishaha markuu tukado meeshaa unbuu fadhiya haddana ilaahay xusaya markaasuu kacaya gurigiisa gaaraya isla markii haddana meeshuu kusoo noqonaya saasay caadadiisa ahayd baa leeyi nin saalix u ahaa oo ilaahay baari u ah hooyadiisna baari u ah laakiin meesha la tilmaamay maxay ahayd huwa biha baarun ninkii doonaya marka inuu liibaano aabihii hooyadii baari ha noqdo wiilashan yaryarka oo dhalinyarado khaasatan wadamadan ku koray hadii hadda isku afba ma nihin hadday afkayga garanayaan ya isku af ma nihin oo hadda inaan ingiriiska baran doonaan umalaynaya si kale male ya haddii aan is afgaranayno waxaad yeelaysaan dadkan oo aada u timaadeen oo gaalada ah dadkan markii horeba aniga idiin sheegay xaqii ilaahay mayna baran rabbigoodna umayna mahadnaqin sidaas awgeed aabiyo hooye uma mahadnaqayaan birulwaalideyn agtooda ma yaallo birulwaalideyn ixsaan caama waa iska leeyihiin oo iyaga dhexdooda ay isu ixsaanaan falaan beryo horean ka fiirsaday oon ini anigu waxaan waayey baan idhi nin weyn oo da-ah oo nin dhalinyaro ah oo uu dhalay gacanta uu hayo waddada uu wado waa waayey kadalik islaan gabowday yani gabadh yar oo dhalinyaro ah oo islaan gabowday gacanta hayso oo wadda oo gaaladan ana waa la waayey anu ma arkin ma aqaana aragteeni kale marka mid baa igu yidhi marmar baad arkaysaa dadkan aada u kala yaqaan wuxuu i marmar baad arkaysaa markaad aragtana ha u qaadanin inuu ilmihiisa maaha meesha dadka waaweyn buu ka shaqeeyaa bu waxaa la amray buu yihi inuu soo warwareejiyo laakiin ma dhici karta buu yihi nin dhalinyaro oo aabihii gacanta hayo oo da-a ma arkaysid buu yihi ama hooyadii oo da-a gacanta haya ma arkaysid buu yii uma suubadaan umana qalmaan yaar dhalinyaro taxi maraykan beri aan jooga maraykan taxile wey soomaali ah wuxuu yihi islaam baa taxiga soo fuushay da-ahoo gabowday dhakhtar igee bay tiri buu meel isbitaal ah aada u fog waan geeyey markay ka degtay waxay u tiri buu yihi bahalkan xisaabta cadaadka tiriya ha joojinin isug ilaa aan kaaga soo noqdo anaa iska bixinaya wax badan iga maqnayd buu ninkeedoo da-ahoo gabowoo dhakhtar ku jiray soo booqanaysay markay soo noqotay haddana waa soo kaxay gurigeedaan kusoo celiyay lacag badan oo 100 iyo ziyaado ayaa kusoo baxday markaasay lacag karoo fara badanna igu dartay markaasaan inigu yihi maxaa kugu kalifay arrintan la ii sheegi kartaa yani taxiga waa iskaga sii dayn karta taxi kalaad qaadan kartay maxaad lacagta isugu badis markaasay iyadoo aada u tiiraanyeysan bay sheeke ii sheegtay waxay tiri anigu horta ninkaan soo booqanaya ninkaygu ahaa o da- meeshuu ku jiraa dhakhtarka wiil iyo gabadh baan leenahay wiilka iyo gabadhaas sanadkii waxay noo iman jireen marka oo christmaska meel ayay noo iman jireen tuulooyin agteena ay degan yihiin ma aragno markaasay noo yimaadaan marka maalintii dhaweyd oo hadda ugu dambeysay markii ugu dambeysay way ila soo hadleen mid walba gaar buu ila soo hadlay hooy waa imanaynaa laakiin lacagta adaa bixinay waa ku imanaynaa imaatinkaas waa kaa iibsanayna waay lacagta kusoo raacayno tareenka ama waxaan adaa bixinaya raalli baan ka habeetay anaaba abaal ku qaba libi inay ii yimaadaan oo wax kasta bixiyo maca dalika imaysan imanin markaasaan go-aan ku gaaray inaan qalbigayga ka saara inay jiraanba kuwaas
sidaas awgeed dhalinyaro kasta oon arko hadda waxaan jeclahay inaan ilmo ka dhigto oon isaga ilmo ka dhigto oo waxaan haya aan siiyo, tanna qaado ood lahayd tanna ku darso, iska tag, saasay ugu tiri. marka waxaan ka wadaa ha ku dayanina dadkan, maadaama xaqii ugu weynaa oo xaqullah haysan haynin, xaqulwaalideynna ma hayn karaan, umaba samaysnaba. saas awgeed waalid waxaan aada maqlaysaan ama iskoolka laidin sheegayo in waalidka lala doodo ama maaragtay lala hadlo ama hayelina idinka, daa'iman ixtiraam, labada waalid ixtiraam baa laydinka rabaa, inaadan kor u fiirin, hadiyo goor madaxa inaad ka dhunkataan, gacanta ka dhunkataan, subaxii markaad sii baxaysaan iyo markaad shaqada kasoo noqotaan iskuolka. ko waxaad ka bilowdaa adoon meel tagin meel kala geyn, aabbaha iyo hooyada madaxa iyo gacanta ka dhunko, waa ku liibaanaysa, ilahay baa kugu jeclaanaya subxaana wa tacaala. kelimad xunna weliga ha ku odhan, kelimad xun weliga ha ku odhan, ay shay ku dhahana waayahay dhe, waa arrin runtii marka lagu hadlayo afka ka sahla, laakiin dhaqankeedu iska dhib badan yahay, ilaa man yasara allahu lahu. khulaasat lkalaam, warkii haddaan soo koobo, ilaahay jala jalaaluhu waxaa ugu weyn in loogu dhawaado waa in isaga la caabudo subxaanahu waxdahu laa shariika lahu, isaga loo mahadnaqo. waxaa ku xiga xaqulwaalideyn baa ku xiga. su-aasha ugu dambeysa marka aan kusoo khatimayno, nin baa su-aal weydiin kara o odhan kara, anigu hadda yani aabiya hooye waa iga tageen, waa dhinteen, ma joogaan, marka maxaan samayn karaa? aabbahay hooyaday oo aan jeclahay inaan u ixsaan falo, wax ixsaan ah, wax baarinimo ah ma igu hadhay mar hadday dhintaan? su-aasha iyada waa laga jawaabay, nabigaana ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam. wa min xusni lxad, su-aashaasna horay u dhacdo oo nabigaa la weydiiyey, nin baa weydiiyey, aabbaha iyo hooyaday waa dhinteen, wax baarinimo hadhay oo aan u baari fali karaa, oon ixsaan fali karaa ma jiraan? haabuy haabuy horta hadday nool yihiin dee waa ad u ixsaan falaysa. booska la gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa in nin nabiga u yimid calayh isalaatu wasalaam uu yihi, waxaan rabaa inaan jihaadka ku raaco, jihaadka inaan ku raaco, jihaadka shayga ugu weyn. hooye ma leedahay? hooyada ma nooshahay? waa laba waalid ma leedahay? ha, fa fiihima fajaahid, orod iyaga maaragta kusoo jihaad. marka khaslada ugu dambeyso ah, labadaada waalid haddii ay dhinteen oo adduunka aysan joogin, ma loo ixsaan fali karaa? ha, waa loo ixsaan fali karaa, waa loo baari fali karaa. nabigu uu noo sheegay alayh salatu slam, biriga aada u samaynaysa aabbaha iyo hooyada oo tegay, kow waa in aada u ducaysaa, birinimaday ka mid tahay. walidaalika dad wanaagsan qaarkood dhaqankooda waxaa ka mid ahaa, wuxuu yihi salaad kastoon ka baxo, rabbi kfir lii waliwaalidaya kama tago, labadaada waalid makfiro ilaahay u weydii. kow. arrinta labaad, inaad u ducayso biraxma, istikfaar, dambi dhaaf, raxmad, ilah u naxariisa aad tiraad had iyo goor. arrinta saddexaad, inaad sadaqa u baxsato, sadaqa bixi, u niyo iyaga, way gaadhaysaa, ilahay baa gaarsiinaya subxaanahu wa tacaala. sadaqadaas nooc kastay noqon kartaa, ma aha shardi in oo maaragtay aad xoolo qasho oo dabadeed xoolaha marka iska dhaqano waxaa iska jiray berigii dambe ay soomaalida meel ka keeneen ma aqaani, xus iyo wax la yidhaha abahay baan xusaya, hooyadii baan xusaya oo kada ayaa iska jiray. asalkeedu waa saxiix, oo inaad intaad cunto samayso, xoolaha intaad gowracdo, masaakiinta ugu yeedho, ay dhargaan oo magaranaysaa ay duceeyaan, oo aabbaha ama hooyada aad tawaabka u niyeysato weeye aslulmas'ala, waana sax, wax ay ku jirtaana male. laakiin in dhaqan lala eegto oo meeshii dad masaakiina la siin lahaa, dad iska aragtay dheragsan meelaha looga yeedho oo xaflad oo kale laga dhigo, oo taas ayaan sharcigu uusan ogolayn, meelna aan ku qotomin. laakiin inaad adiga aadan weliba xataa wakti u samayn, sanad kasta markuu dhintay maxaa qasab ka dhigay, ay waqti oo aada waxheshid, sadaqa la bax. sadaqadana daa'iman tan daa'imkae mutawaasilka fiican, sadaqa jaariya, masjid la dhisayo, ceel la qodayo, biyaheeda la cabayo, xoolo nool aad bay u fiican yihiin. haddaad intaad iibiso dad masaakiina oo baadiyihii joogoo kale aada maaragtay ku sadaqaysato, inta ay nool yihiin ama wax daaqayaan ama wax sii dhalaan, ajir aabbaha iyo hooyada u socdo weya fii qabrihima, oo nuur u dareerayo, waa wax weyn weyaan baa lagu helaya. kow. waxaa kale oo ka mid ah biri lwaalideyn bacda wafaatihima, markay dhintaan, in hadday dardaaran ka tageen, dardaarankoodii aada meel mariso. dardaaran bay ka tageen, dardaarankii ay ka tageen fuli. arrinta shanaad waxaa weeye
saaxiib bay lahaayeen. waxaan soo iloobay silatu araxim, silatu raxim, raximkii ay isku kaa xiriiriyeen iyagu xag hooye ama xag aabbo inaad xiriiriso. biri lwaalideynta bacda wafaatihima bay dhimashadooda kadib bay ka mid tahay in raximka aada u ixsaan fasho. oo silaturaxim de waad garanaysaan, waa wax aan ma garanaysaa yani wax koobi kara ajirkiisa iyo khayrkiisa usan jirin. oo xataa nebigu yiri ninkii doonaya in cumrigiisa loo kordhiyo loo barakeeyo, risqigiisana ilaahay waasic uga dhigo, raximkiisa hasile ha xidhiiriyo. marka raximku wax weyn weeyaan. maxaad u xidhiirinaysaa? labadeeda waalid awgood, leanna raxim kale maydaan isu timaadeen, iyagaa isu kinkeene. arrinta ugu dambaysa waa sadiiqoodii, saaxiibka la ahaa. aabbahabaa nin saaxiib ah lahaa, ama hooyadaaba qof saaxiibada lahayd oo had iyo goor isla socon jireen oo isjeclaayeen. iyagana inaad u baarinimo fasho, meeshii aada aabbaha iyo hooyada u joogi lahayd iyagana u joogtid oo aada xusuusatid. xataa haddii ay kaa fog yihiin ama wadankii ay jiraan, had iyo goor aad ku darsato dadka aada ma garanaysaa marmarka qaarkii wax u dirayso ama aada ka farxinayso, inay kow ka galaan. leanna aabbaha iyo hooyadaabay saaxiibkooda ahaayeen, falisuxbatihimaa baad ilaalinaysaa, birigooda ayay ka mid yihiin. wa akhiiran nadcu llaha tacaala, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa waalidiinteenna inuu dambi dhaafo. galabtaa insha allahu galbaha ilaahay ka mida, wadamadeennina habeen ah ee barakaysan min cindihi, in ilaahay subxaana watacaala fadhigaan isugu nimid awgeed ilaahay subxaana watacaala aabbayaashiini hooyooyinkeen naar ka koriyo oo jannada uu geeyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inteena meesha joogta iyo intana dhegaysanaysa iyo inta hadalkeena la socota, kii aabihii iyo hooyadii ay nool yihiin, ilaahay inuu baarinimada waafajiyo. aabihii iyo hooyadii kii ay tageenna in ilaahay subxaanahu watacaala uu naxariisto, khayr uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa. caruurtana ilaahay baari hanooga dhigo, saalixiin allah hanooga dhigo, ilaahay hanoo hanuuniyo. in allaha calaa kuli shayin qadiir. allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamedi wslim tasliima kaiira. wasalaamu calaykum waraxmat llah.